bukaan ay jug kaga dhacda madaxa dhiigna kaga furma ayaa waxaa qalliin loogu sameeyey isbitaalka kalkaal. bukaankan oo muddo weysana ogaalkiisa ayaa markii lagu guulaystay qalliinkiisa wuxuu kaga mahad celiyay dadaalkii iyo daryeelkii loogu fuliyey isbitaalka kalkaal. kalkaal inta imaan ogaal ma lahayn markii oo inta la keenay oo qalliinka lagu sameeyay caafimaad kii koo waxaan ku bilaawday dhadhaco dhacay gadaalii waaba afreebta mahad celinaa kalkaal iyo takhaatiirta oo joogaan. علي حسن عثمان أنا محمدان ويلكيد ومدح كحنوسند وكالكال لوقالي عندنا حالة ما شاء الله الحمد لله أفضل إسبيتال أو مقالة كويالو أنا جيني وحما وقوا كرنيدين مركز دنبانا للشيء كالكال مركا إيماني وأنا لقبتي تتول كرشان قلي أو يقلي حالة عافمادنا بقول الحمد لله إله ما تسكن محمد أديك مد أو حي حنوسند هل بلوك له حنوسند جب أو مدح حددا دي فريا الله مدح وهاي حنوك الحمد لله عدنا يقول كهوري وقف إسكجيفتو نافع أو هدلين عد ملقهين وحوا بيها هدي لوسي سلينجا تابع يسوع النيسي عدنا ما شاء الله إذا قعنت هذا وحكو قبسني الحمد لله إله وما دعلنينا. sidoo kale Dr. Nuur Kaarsho oo dhakhtarka qaliimada iyo madaxa neerbaha ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee bukaankani oo la soo gaarsiiyay isbitaalka takhasusiga ee kalkaal. sida maamada fiidiyowga aan ka daawateen oo kaleeto maama Faadumo oo yani ku dhacay darteed madaxa dhiig uga furtay compression ku keenay ama wuxuu ku keenay cadaadis inuu maskaxda saaro. maamada waxa ku timid marka waqti badan kadib inay ku dhacaan in ogaal ka tago isku darsanto dadkii markii dhakhtar loo geeyay yiraahdeen quraan iskaga akhriso guriga iskaga ceshta quraan iskaga akhrista laakiin alxamdulillah markaan la kulmo kadib adiga waxaan u sheegay in qalliin loo sameyn karo qalliinku risk iman karo laakiin aanu badnayn ilaahina waa fudud ilaahay fadligiis isbitaalka markay timaaday ميركيد ما فعنا هبين كل قلة الصبح دنبه وهديس قعنت لقطة وميتك وصاك عين الحمد لله ما مدي وقت صعطة لينا كواركسين فيديو كواركتين